السلام عليكم سو dhawaada saaxiibayaal waxaan ahay Ibrahim Adam maanta wixii ka dambeeyay waxaan rabnaa in aan luqadda Englishka aan focus ka saarno markasta waxaan idin dhahaa waxaan jeclahay maaragtay qof kasta oo idin kamid ah qof kasta oo Soomaaliya in uu barto luqadda Englishka oo ku hadlo sidaas la ajligeeda marka waxaan rabaa maaragtay in luqadda Englishka aan focus ka saarno waxaan halkan ku soo gudbiyaa niches kala duwan sida financega personal development iyo sidoo kale to Englishka laakiin waxaan rabnaa maaragtay muuqaaladeena inta badan inaan focus ku saarno Englishka haddaba maanta waxaan rabaa inaan muuqaalkan idinkugula wadaago saddex kelmadood oo ay tahay in aad kala fahantid qaabka loo kala isticmaalo badankiina waxaa laga yaabaa in aad ku wareersan tihiin qaabka loo kala isticmaalo waqtiyada la isticmaalo iyo sida loo isticmaalo haddaba erayadan waxay yihiin aan rabo in aan muuqaalkan idinkugula wadaago could have should have iyo would have sida loo kala isticmaalo goorta la isticmaalo ayaan rabaa maaragtay muuqaalkan inaan ku sharaxno haddaba haddii aan u gudagalno mid u horeysa oo ah could have goorma la isticmaalo could have haddaba could have waxaa loo isticmaalaa wax dhici karay bastigii ama wax la soo dhaafay oo dhici karay balse aan dhicin yani wax dhici karay yani waqti hore wax dhici karay basti macnaa wax la soo dhaafay wax dhici karay waqti la soo dhaafay balse aan dhicin wax aad aragtay wax aad rabtay in aad samayso oo macquul ahaa in aad samayso balse aadan samaynin yani sababta aysan waxaasi u dhicin adigaa lahaa in ay waxaasi dhicin sababtooda adigaa lahaa okay haddaba haddii aan example soo qaadano I could have done the house cleaning but I decided to go out with my sisters or with my siblings yani I could have done the house cleaning yani guriga waan hagaajin karay yani waan samayn karay inaan guriga nadiifiyo laakiinse waxaan go'aansaday inaan walaaladay banaanka u raaco yani in aniga iyo walaaladay aan banaanka aadno ayaan go'aansaday laakiin waan samayn karay inaan guriga hagaajiyo okay so marka waxay noqonaysaa wax aad samayn kartay oo ay macquul ahayd inaad samayso balse adiga dartaa sababtaada adiga sabab waa inaad samaynin waxaad go'aansatay inaad baxdo halkii aad waxaasi samayn lahayd so waxaan rajeynayaa midaasi inaad fahanteen taasi waxay tahay could have okay haddaba haddii aan midda labaad u gudagalo oo ah should have ayadana waxaa loo isticmaalaa wax la filayay in ay dhacaan ama la sameeyo ama muhiim ahaa in la sameeyo balse aan la samaynin ama aan dhicin ama maaragtay inaad shalaytooto in aad ka shalaytooto in aadan waxaasi samaynin regret yani inaad ka regret garayso in aadan samaynin waxaasi haddii aan ayadana marka example soo qaato waxay noqonaysaa I should have done my homework last night now I have no time yani waxay ahayd in aan ka shaqeeyo exercise-kayga ama homeworkii oo macalinka isoo siiyey shalay inaan ka shaqeeyo xalayto yani xalay waxay ahayd inaan exercise-kayga ama homeworkayga ka shaqeeyo hadda wax waqtiga ma haysto waa la soo dhaafay hadda macnaha subax ayaad joogtaa iskuulka ayaad u sii socotaa ama jaamacadda ayaad u sii socotaa kadibna homeworkii lagu soo siiyey shalay xalay kamaada shaqeyn marka waxaad ka regret garaysay ama ka shalaytootay in aadan samaynin homeworkii ama aadan ka shaqaynin xalayto haddeertan la joogana waqti aadan u haynin aad uga shaqayso sababtoo waxaa laga rabaa kalaaskii inaad aado so waa wax dhici karay balse aadan ma aragtay samaynin okay so should have ayadana sidaas ayaa loo isticmaalaa waxaan rajeynayaa maaragtay inaad fahanteen midda saddexaad ee ugu dambaysa ayadana oo aan rabo inaad fahantaan ayaa waxay tahay would have ayadana waxaa loo isticmaalaa wax aad rabi lahayd in aad samayso ama aad samayn rabtay balse aan macquul noqon sabab jirtay ama xaalad jirtay awgeed yani waxaad rabtay in aad samayso waqtigaas yani waa past okay all these words aan ku sheegayo waa past wax la soo dhaafay waayo waqti la soo dhaafay wax dhici lahaa waayo oo aan dhicin haddaba marka middan macnaheedu waxa weeyaan waxaan waad samayn lahayd yani waxaad rabtay inaad samayso balse wixii ma aadan samaynin sababtoo ah waxaa jirtay sabab kale oo keentay in aadan samaynin yani wax ayaa dhacay waxaa soo kalifay waxa ay rabtay inaad samayso in aynan dhicin waxaan rajeynayaa inaad fahantay example ayaan ku siinaa marka he would have called you but his phone was dead yani wuu ku soo wici karay muuna ku soo wicin yani muuna ku soo wicin sabab jirtay awgeed qof baa rabay inuu ku soo waco balse aanu ku soo wicin qof asaga la joogay ku yimaado marka wuxuu ku dhahay qofkaasi uu ku soo wici rabay maxamed wuxuu rabay inuu ku soo waco laakiin samuuna ku soo wici karin sababtoo ah telefonkiisa damay so you were expecting something to happen laakiin waxaasi ma dhicin okay waxaad expect garanaysay ama sugaysay ama filaysay inay wax dhacaan laakiin wixii ma aynan dhicin sabab jirtay awgeed yani there is a reason behind this inay waxaan dhicin waxa jirto sabab ka dambayso waxaan okay haddii aan soo qaato example labaad wuxuu noqonayaa they would have come earlier but their flight was delayed yani
waqti hore ayay ahayd inay yimaadaan laakiinse sababta aanad waqti hore u imaanin waxay ahayd flightooda ayaa delay noqday ama dib u dhacay. yacni diyaaraddan waxay soo kici rabtay 12 pm laakiin waxay soo kacday 2 pm ama 1 pm. saas la ajligeeda dadkan waxay imaan lahaayeen waqti hore ama waxaan u expect garaynaynay ama filaynay in ay waqti hore yimaadaan balse maynan imaanin sababtoo ah diyaaradooda ayaa dib u dhacday. waxaan rajaynayaa inaad kala fahanteen qaabka loo kala isticmaalo could have, should have iyo would have. sidaas ayaa loo kala isticmaalaa saddexdoodaba. waxaan rajaynayaa maaragtay inaad kala fahanteen oo maaragtay hadda ka bacdi aad kala saari doontaan maaragtay could have, should have iyo would have. fadlan haddii aad kanaalka u soo birin waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhahdo ama ugu yaraan hal qof asxaabtaada ka mid ah aad u share garayso. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. asalaamu calaykum.